السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابتي دقالي قدام أنت بسوي دوادة وأنا قارح مالك تقول صوتنا وادتين كيتشن ما أنت فيديو كان إدي موضوع فيديو أن إن بعادي أحين ويان مكتا شي سام بستيه لو حيي سومن كتن برمضان بلغو تيران بدونس إن السفود ذو عبادي ستين حدد شباب تظهرت هاي إلا طاو فيديو كان بلا ولا آخر وان هو إن تكهل دونتيد سونو تشابين دونتيد maanta saambusahna waa saambusa dhadhankiisu aad iyo aad cajiib u yahay wax hawl ah oo haba yaraata uu kaaga baahan yahayna ma jirto waqti yar iyo dhadhan fiican oo ku qancin doona insha Allah ayaan ku ballan qaaday inaad kala kulmi doontid videogan haddaba haddaad igu cusub tahay ha moogaanin inaad subscribe ta saartid notification-kana aad daaratid haddaad hore noola joogtayna dee hanagala bakaynin like-ta iyo share-ta ugu horaan axbaabi maanta waxaan sameysanayaa duqadiisa waxaan ka sameysanayaa ama qudaarta dhexda laga gelinaysa hamsaan chickenkayga marka hore sida caadiga ahayd baan usoo meydhay oo soo si fiican baan soo meydhay khal iyo waxoogaha yar oo lindana kusoo meydhay kadib dabkaan saarayaa waxaan doonayaa inuu isoo yar karkaro oo lafta kasoo bislaado waa kan marka uu biyihii soo dhamaystay digaagii aan soo qaaday waan saa jarjarayaa aad baan u yaryareynayaa waad arkaysaan waan soo yaryareystay digaaga laga sameeyay sambusa aad buu dhadhan macaan yahay isigiyo kalluunka dad awal hilib kaliya isticmaal jirtay bal la tijaabi chickenka iyo kalluunka laftirkiisa aad buu dhadhan macaan yihiin halkan waxaan ku haystaa basashii aan ku darsanayay sidii caadiga ahayd basasha dabka soo saaraya wax saliid kuma darayo sidii caadiga ahayd baan isku soo shiilaya halkan waxaa iigu diyaarsan barbaroonidii kala duwaneed barbaroonidii caseed barbaroonidii huruud ahayd si akhdarka ahayd midba jeexir baan ku darayaa iyo waxoogaa yar oo qajiya ama basbaaska akhdarka intaasi basasha ayaan maxay hayday waxoogaa isku soo yar shiilaya sidii caadiga ahayd awalba u samaysan jirnay hilibka ama duqada aan ku darsan jirnay sambusa oo kale weeyaan waa kaas imika waxaan ku darayaa chickenka waad ogtihiin waan soo bislaystay markii hore dabkaan soo saaray biyaan kusoo yar karkariyay waan soo jarjaray kadib basashaydii iyo barbaroonideydii baan ku darsanayaa qofkii jecel carrot inuu ku darsado ku darsan karaa qudaarta kale jeceshay xilliga ku darsid waad ku darsan karaysaa taas adiga choice-kaaga weeyaan kadib hadda waxaan ku darsanayaa wixii xawaashi ahaa ugu hore waxaan ku darsaday maaji sidoo kale waxaan ku darsanayaa kamsar shiidan ama geedo waxaan ku darsanayaa oo kale xawaashi hilibkii ama maxay ahayd qamuuntii waxaan kaloo ku darsanayaa filfishi madoobeyd waxaan kaloo ku darsanayaa basbaaska xasaa waxaan ku darsanayaa toontii shiidneyd sidoo kale waxaan kusoo darstay waxoogaa yar oo xawaash gaari ah intaas oo dhan markaa aan isku daro asxaabteeda marka u horeysa chickenka biyaha aan kusoo karkariyay waxoogaa milix ayaan ku daray qudaartii markaas la soo kay wada bislaatay waxaan ku daray 2 mulqaaxadood oo cheese-ta quraaradaha ah cream cheese-ta loo yaqaano ma aqaan waan jecelahay dhadhan fiican ba ii siisaa qofkii doonayo kale mayonnaise ku darsan karaa ketchup ku darsan karaa halkan waxaan ku sameysanayaa bedrikii lawaxa roodhida waxa weeyaan toastka sliceska ah ayaan soo qaadayaa waxoogaa yar waxaan ku kala bixinayaa qor lawaxa kadib waxaan ka goynayaa hareeraha يا سلام حكا فضبا ما انت سامبسيهنا حاول بمالي وحوية خطوقات هذا سميسو رودي هذا يرفدسو كوكور خلاص وبحاولن
wax la deerdeerinayo wax la saarsaarayo wax la waxayo midna maaha. wakaas aad baan soo wada khafiifinayaa saasan ka soo dhigayaa waxaan soo qaadanayaa waxoogaa yar biyaha halka waxay ku jira biyo koobkaygaas si aan markaan xashwada ama hilibka gudaha uga guro si fiican ay isku qabsado roodhida isku qabsato. biyo ayaan soo wada marinayaa kadib waxaan ku darsanayaa mayonnaise-ka basbaaska leh basbaaska caadiga ku darsan kartaa ketchup marsan kartaa aduu choice-ka adiga iska leh waxoogaa yar waxaan doonayaa bas inaan qaleel zaa'id ay igu noqonin ay gudaha jilac ka ahaato. wakaas koonaha ayaan maxay heeday kaga shubayaa ama kaga ka saarayaa hilibkeeni aan soo sameysanay. kadib saddex gees ah ayaan soo laabayaa. ya salaam waa diyaarba. sidaas ayaan maxay heeday labada koone uga xirayaa. waad arkaysaan dhan kastaba uu isqabsaday maasha allah. taas roodhidii intii kalena waan soo wada la waxday waan ku gurayaa. saddex geeska qaab kale ka duwan oo u samaysan kartaa sida roolka ayaad u duubi karaysaa inta bartanka kaga darsatid chickenka ayaad duubaysaa. labada siyaabood ba isku mid weeyaan waxay ku kala duwan yihiin muuqaalka laakiin dhadhankoodu waa isku mid. gudahana same steps baan ka sameynay. halkan waxaa iigu qasan beed waxoogaa yar milix iyo waxoogaa yar filfil ku soo daray. beedka ayaan ku rogayaa. kadib markaan ka saaro waxaan gelinayaa roodhi tuman oo halkan ii diyaar. roodhida tuman waxaad ka samaysan kartaa roodhidina caadiga ah ayaad qalajisanaysaa ama maxay heeday aad ovenka yar gelinaysaa kadib waad tumaysaa ama aad ridqaysaa. kana waxa weeyaan saambusihii kale saddex geeslaha ahaa isaguna sidoo kale beedkan dhan kasta ka marinayaa. haddii aad istiraahdo haraaruhu ka yar furanayaa waxaad samaynaysaa muqaacadaada iyo roodhida dib isku yar cadaadi beedka iyo roodhida ayaa maxay heeday isku dhijinaya wax saliida habeeraatana anaa ku haba gudaha kama soo baxayaan oo kama galayso. si fiican roodhida dusha uga mari dhan kasta uga gaarsii. saas ayaan kusoo dhameynayaa roodhidan ugu talagalay maanta inaan saambusaha ka sameysto oo dhan. inta ay harsan baan soo wada marmarinayaa. kadib markaan intaa dhameeyo waxaan u keenaa dhanka iyo shilimaadka. dabka waxaan soo saarayaa maaqlaha waxaan ku shubayaa saliidii marka ay soo kululaato ayaan saambusihii ku ridridayaa. sidii caadiga ahayd baan u soo shiilayaa marka xoogaha marba dhanka soo casaado ayaan dhanka kale u rogayaa. saambusahan wax saliida habeeraatay macabo aad buu u fudud yahay dhadhankiisu u macaan yahay caruurtu way jecel yihiin. ketchup iyo mayonnaise dad ku siisid kaaliska arag weeyaan dhaqsana uu kugu bislaanayo maadaama isagu aanu ahayn cajiin qeyrin ama maxay daqiiq qeyrin isagu wax weeyaan wax bisil marka horeba marka waqti badan kaama qaadanayo wax yar unba saliid gelinaysa laba dhamarka ka xasaado waad ka soo saaraysaa. ugu dambeyn asxaabtada qaaligaada maanta saambusaheeni saas u soo baxay maasha allah tabaarakallah. dhadhankiisu inaba caadi ma aha waa saambusa fudud maadaama oo ramadaantii 10kii dambe la galay. waxaan ugu talagalay insha allah in aynu fududeysano oo aynu cibaadada awoodda saarno si aynu 10ka dume khayrkeeda ilaahay inoo siiyo uga faa'iideysano. axbaabi haddaad ka hesheen waxaan jecelahay inaad videogan asxaabtiina la wadaagtaan ugana faa'iideysaan insha allah. hamoogaanina inaad subscribe-tana nagu caawisaan fariimihiinana aad noo reebtaan. aad iyo aad baan dhammaantiinba
idinka mahadcelinaya sida fiican aad muuqaalkan usoo daawateen usoo dhamaystirateen maasha allah sambusahaasna waxaan hubaa inuu idin caajibin doono dhadhankiisana aan idinka tijaabiyo